وبلاو أدوين وانسود وينايو إن لدردر قليو وأنا إذا مدن دلني يردا وهالكن جوجا يصير قرحيان وحن لا يعيش دحقل كهالك صلنا سيوله وايو إن شعب كي عيدن كله يسدحقلي ومهم عيدن كوان نجم مدنيا هاي قدرين يا كرامين وايو وحاي بحيان وحا أقال السن ولا بحيو أو ديجول عيدن كو قفل بو سوماليا دو هالكن جوجا وينو أقادو وعيدن كذا وعيدن كيسا وعيدن كذا وعيدن كنا وعيدن كذا وعيدن كدمانتين وعيدن ككل جن وأنا نقبلنا إن يهين مركب وح كل جن أو مضلنا وحمهيم مركا إن دتك الصوماليات كل جن أنا أقبلنا مناسبة دني إن يتهاي قيب كمية دجال كأي وضان إذا ما دقلب كسيدا سببته haddii aan lala shaqayn haddii aan loo kaalmayn haddii aan la caawin ma gudan karaan waajibkooda haddii aanay shacabku ku soo cararin ciidanka shacabku aanay ciidankooda aaminin ciidankuna aanay fahmin inay yihiin adeegayaasha shacabka waxbaa naga xun sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa munaasabadan iyada ahi inay howlahaas dardar gelin doonto waxaan rabaa marka caawa annagoo ka hadli doona ugu dambeyntii muhiimadda arrimahaas ay leeyihiin inaan ka hadalno meesha aan taagannahay iyo halkaan u soconno sanad iyo bar ku dhowaad ka hor ayaan soo hor istaagay shacabka Soomaaliyeed oo aan u sheegay anigoo u wakiila xukuumadda iyo madaxweynaha in dalka Soomaaliyeed sida kaliya uu horumar ku gaari karo amnina lagu heli karo inay tahay marka hore inaan isku filnaano dhaqaale ahaan waxaan bilownay safar dheer oo la yiraahdo dib u habeynta dhaqaalaha dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa markii aan bilownay safarkaas dheer dad badan oo Soomaaliyeed iyo inta badan dadkaan Soomaalida ahayn way rumaysan waayeen inay Soomaalidu ka dhameyn karto go'aankaas ah inay rabaan iyagu inay isku filnaadaan dhaqaalahoodana dib u habeyn ku sameeyaan ku dhawaad 2 sano ka hor ayaan u sheegay maalin dadka Soomaaliyeed inuu muuqdo iftiin aan u jeedo meel barwaaqo ah aan raba inay nala tagaan caawa waxaan rabaa inaan idin sheego inuu iftiinka aad u soo dhawaado dawladda Soomaaliyeed waxay qarka u saaran tahay hadda in ka yar sanad in la bilaabo in laga cafiyo qaybtii ugu horeysay deyntii lagu lahaa waxay qarka u saaran tahay in ka yar sanad in bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika iyo bangiga Islaamka adduunka haddii 10 bilood oo dhiman aan ka soo baxno shuruudaha naloo furi doono albaabadii naga xirnaa in ka badan 30 sano taa waxaa lagu gaaray inaan ka shaqeyno maaliyad hufan inaan la dagaalamo musuqmaasuqa inaanan gelin deyn xasuuso halkan marka aan nimid dalka waxaa lagu lahaa 100 milyan oo dollar oo deyn ah oo ka banaan ku dhawaad 5 bilyan oo dollar oo dibadda lagu leedahay 100 milyan waxaa ku lahaa shaqaale ama ciidan ama shacab ama aan mushaar la siin ama adeegoodii lacagtii aan la siin markii iyada ahayd waxaan sheegnay inaanan deyn geli doonin qof walba oo dawladda u shaqeeyana aan siin doono mushaar laakiin aan codsanayno qof walba oo mushaar la siiyo inuu yahay qof dawladda u shaqeeyo 2 sano kadib waxaan ku faraxsanahay inaan hortiina soo istaago aan idin sheego
wixii maalintaan idin sheegnay inaan ka dhabayn caawa maadaama marka aan aqbalnay in dhaqaalaheennii uu horumar samaynayo in siyaasadeenni arrimaha dibadda ay horumar samaynayso in qabkii Soomaalida la soo celiyay waxaan rabaa inaan ka hadalno arrimaha ciidanka iyo dib u habeyntiisa waxaan rabaa horta inaan idin sheego sidii aan u nimid askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doonaa laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno idinkuna aad markhaati noo noqotaan laylada ma hadle waxaan rabaa inaad dhageysataan mushaharka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha Mareykanka Turkiga isu taga Imaaraadka Carabta waxay ku bixin jireen malaayiin dollar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliyeed waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017 inta dawladdeena ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018 waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019 waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016 iyo 2017 waxaa lagu bixiyay 43 milyan iyo 47 milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyayna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyay sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma na aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagu soo qoray ama kan email ee jirto dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaarahan ka ah waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyay wiilashaas iyaga inay soo gaarto waan dhaxla laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan kuwa garaadaha waaweyn haystana
waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinka nala ku aaminay iyaga inaan gaarsiino. waxaan rabaa marka inaan u sheego taliyaha xoogga iyo taliyaha booliiska iyo qof walba oo garaadda haysta, waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan geliyo, xerooyinkooda ay joogaan, raashinkooda waa annaga bilownay boqolkiiba 50 ka mid ah ama $30 bil walba akoonkooda in loogu soo shubo qofkii la diiwaan geliyay iyadoon dhicin 10 sano. waxaan rabaa in askari walba oo la diiwaan geliyey oo la geeyey xeradiisa oo ciidanka u adeegayo iyo inaan kala duunno kuwa inta safka la soo geliyo la diiwaan geliyo dalka aan u shaqayn kan dhimanaya mushaar lamidana qaato. dhaqankaas soomaalinimo lagu gaari maayo, dowladnimo lagu gaari maayo, mana la aqbali karo. ma khalad baa intaasi inaan isu sheegno? ma khalad baa in intaas laydiin sheego? indha qarshe iyo bashiir waxaan ka rabaa askari walba oo diiwaan gashan oo dalka u adeegaya mushaarkiisa, raashinkiisa iyo daryeelkiisa inay aniga iigu yimaadaan. laakiin dowladda Soomaaliyeed ma ahan mashruuci cayrta. ciidankuna waa meeshii ugu dambeysay oo dhaqankaasi uu ka dhici lahaa. maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin. qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya, xuquuqdoodan aniga iga soo doona, markhaatina ka ahaada Soomaaliyeed. fariinteennu waxay ahayd isbeddel dalka in lagu sameeyo. waxaa kaloo ahayd isbeddelku waa xanuun. isbeddelku waa inuu dhibo qof u malaynayay isaga inuu u wanaagsanaa. isbeddelku waa inuu dhibo qof aan rabin in wax isbeddelaan. sida keliya ee dhallinyaradaas askarta iyo gabdhahan Soomaaliyeed oo mustaqbalka raadinaya ay horumar ku gaari karaan dunida inteeda kalena ay kula tartami karaan, waxa ay tahay in la aqbalo in dhaqankii hore oo siyaasadeed laga gudbo, in dhaqankii hore ee maamul laga gudbo, in dhaqankii hore oo shaqo oo fadhi ku dirir ku salaysnaa shaqo dhab ah lagu bedelo, in dhaqankii hore ee madaxda iyo shaqaaluhu aanay run isu sheegayn lagu bedelo in runta la isu sheego. ugu dambeyn waxay tahay macnaheedu qof walba oo kursi ku fadhiya, mid ciidan iyo mid culumo iyo mid bulsheereed iyo mid madaxweyne iyo mid wasiir iyo mid ra'iisul wasaare, kulligeen bulshadu waxay nagula xisaabtamaysaa sanadkii 2 ama 3 sano aad joogtay dhaqankaadu siduu ahaa, saacadihii lagugu talagalay muu soo jeeday ummadda Soomaaliyeed, xoolahooda muu ammaan gelisay, runta ma u sheegtay. waa muhiim marka si wax loo bedelo in runta la isu sheego, in wax la isu qariyo maaha. ciidamada madaxdeeda ayaa laga rabaa inay wiilashaas mustaqbal u sameeyaan. annagana waxaana laga rabaa dhaqaalaha ay noo dhiibteen dadka Soomaaliyeed oo ammaanada nagu ah inaan soo gaarsiino. waa inuu jiraan nidaam shilinkii qasnada dowladda soo gala aan ku ogaanayno meesha uu tagayo. ugu dambeyntii macnaheedu waxay tahay waa la dhibtoonayaa, laakiin dhibka waxaa looga bixi doonaa marka isbeddelka dhabta oo aan raadinayno u dhaco. waa maxay isbeddelka kale oo aan rabno inaan dalka ka hirgelino? waan idiin sheegay in dhaqaalihiinni meel fiican idiin marayo, in dhaqaalihii uu soo galay ciidamada in dib u habeyn lagu sameeyo. waan idiin sheegayaa inta beenta ku diiwaan gashaneedna bannaankaa laga dhigaya, inta gabowday oo xuquuq ku lehna hay-ad kalaa la gelinayaa, xaqoodana waa la siinayaa.
انت شقين كرتنا عيدا بيودي وانكشكشنان عيان لكن عيدا معنى هيدو مردا بمأهن شغل يحسن إيه إيميلات أهمية الكواد والدولة نمدو إيلادا وحوايا ويل صوماليات يجبر صوماليات وسوق الدنتين نفتي ده وربطين يبيجي ده هرتو النبو إن أهمية الكواد كدقنو هذا دوكتين أهمية الكواد ميزانية الدولة waxay tahay bishii markii ay dhamaato inay ahmiyada koowaad leeyihiin mushaarka ciidamada iyo raashinka ciidamada laakiin isla xisaabtan kuwa laba jid hal dariiq kaliya ma waa inaan annaga iyo taliyayaashu iska hor nimaada annaga iyo wasaaradda maaliyadda iska hor nimaada annaga iyo cid walba oo mas'uul ah iska hor nimaadna si aan meesha dhexe oo saxda dalka ugu soo hoyno runtana waa idin sheegayaa dib u habeynta ciidanka ma joogsanayso ilaa aan ka hubsanayno boqolkiiba boqol aan soo celinayno libaaxyada geeska Afrika waa maxay isbedelka dalka ku socda orod tag isbitaal banaadir ee ka doono adeeg lacag-la'aan orod tag isbitaal martiini ee ka raadso adeeg lacag la'aan waa bilow arag ku dhawaad sodomeeyada ama 25 iskuul oo markii ugu horeysay ku dhawaad 30 sano dawladda Soomaaliyeed ay la wareegto si arday Soomaaliyeed loo siiyo waxbarasho ay xaq u leeyihiin هدفك مركب معها إسبيتال يا إسكول كلية هدفك waxa uu yahay marka ugu dambeysay inaan gaarsiino gabar walba iyo wiil walba Soomaaliyeed inay hesho isbitaal iyo iskuul lacag la'aan ah sida anagu aan ku soo helnay markaan dhalinyarada ahay orod jidadkiina xamar iyo jowhar iyo xamar iyo afgooyo leedin bilaabayo in highway leedin kaga dhiso laba sano ha qaadato laakiin ay bilow orod arag dhaqaalihiina kor u kacay ama ganacsiga la diiwaan galiyay ama sicir bararka hoos u dhacay ama dakhliga guud oo kor u kacay ama awoodda wax iibsi oo kor u kacday ama adduunyada oo dhahaysa dhaqaalihii Soomaaliya waxa uu rabaa ama u muuqdaa inuu wax taraayo ama dunida ay la falgali doonto maxaa dhici doona marka laga soo bilaabo Febraayo 2020 wixii ka dambeeyay hadii la yiraahdo waa hadii aad nala shaqeysaan aqbashaan isbedelka xanuunka imaanaya waxa imaan doona in billions of dollars oo dalkan albaabadiisa ku xirnaayeen ay u furmaan in hay'adaha horumarinta adduunka oo billions of dollars wadankan gashan lahaa ay maalgashi u yimaadeen waxa imaanaysa qaybtii maqneed si loola dagaalamo argagixisada oo ah in shaqo la abuuro in adeegyo dadka la siiyo in dadku noloshooda ay jeclaadaan in dalkan lagu soo ordo oo shaqo loo soo doonto inta laga carari lahaa oo caruurtooda ay badaha ku dhamaan lahaayeen waa maxay isbedelka afaraad oo aad arki doontaan waa kan ugu dhibka badan markii aan dhaqaalaha bilownaad ku xanuunsateen markaan ciidanka bilownaad xanuun dareenteen markaan isbitaalada la wareegaynay iskuulada ayaa dhib la dareemay ama jeedka la bilaabay la dhiso ama la yiri shaqo la abuuro kii ugu dhibka badnaa ayaa bilaabanaya 2019 kaasi waa maxay sida loo bedeli lahaa siyaasadda dalka kaasi waxa weeyaan sidii dalka doorashadiisa looga bedeli lahaa sida yahay sida awoodda shacabka loogu soo celin lahaa sida looga heshiin lahaa awood qaybsiga iyo kheyraad qaybsiga sida looga heshiin lahaa dawlad noocee ah ayaan leenahay sida loo dhameystiri lahaa maqaam noocee ah ayay magaalada Muqdisho yeelanaysaa
haddii aad aaminsan tihiin marka rag iyo dumar dhalin iyo waayeel shacab iyo ciidanba in jihaadkii isbeddelka uu dhammaaday waxaan idiin sheegayaa weli ma bilaaban ee soo diyaar garooba waxaa kaloon bilownay shaqo walba oo aan hayno inaan u geyno dowlad goboleedyada sida dowladdu u shaqayso hadafyada halbeegyada isla xisaabtanka tubaha dhaqaalaha waxaan ku bilownay ama sida golaha wasiiradu u shaqeeyaan shaqaalihii xafiiska ra'iisul wasaaraha jawhar ay fadhiyaan caawa baydhabo ay ka yimaadeen 10 maalmood ka hor dowlad goboleedyada kale ku sii socdaan nidaamka isla xisaabtan ee dowladnimo ama dib u habeynta qaab maamulka dalka ma shaqeynayo xamar kaliya hadduu ka shaqeeyo waa in dalka meel walba la geeyaa macnaheedu marka waxay tahay waa isbeddel qoto dheer oo aan rabno inaad kulligeen nagala wada shaqaysaan marka waxaan rabaa caawa maadaama halkan isdhexgalka ciidanka iyo bulshada la isugu yimid gobolka banaadir inaan ku adkeeyo iyo culummada bulshada rayidka gabdhaha Soomaaliyeed iyo fanaaniinta dhalinyarada in hawshan la dardar geliyo taliyaasha ciidamada waxaan leeyahay generaal Indha Qarshe iyo generaal Bashiir 5 sano kadib fursad ma jiri doonto taliya ciidan dambe ku noqotaan haddaad haysataan dhaxal uga taga caruurtiina haddaad haysataan isbeddelka horseed ka noqda haddaad haysataan ka shaqeeya in la soo celiyo libaaxidii geeska Afrika runna waan idin sheegayaa haddii aad isbeddelka ka baqdo haddii qabiil ku cabsiyo ama qof meel dan ku qabay uu ku cabsiyo sanad kadib lagu xasuusan maayo qof baa ay cabsiyay sanad kadib waxa lagu xasuusanayaa inaad shaqadaadi ku saaxiibtay ugu yaraan marka aniga igu daysada isku daya soo istaaga dhinacayga muhiimadda aan leenahay waxa ay tahay marka aan joogno inaan isku dayno runna waan idin sheegayaa meelo badan u taaban doonaa isbeddelka waddanka laga rabo sharafta iyo karaamadu marka waxay ku xiran tahay sida aan ciidankeena u qiimeeyno in dib u habeyn ciidanka lagu sameeyo mushaarkooda akoonkooda loogu rido kuwa diiwaan gashan oo furunta dagaalka jooga ama shaqo la hubo mushaar la siinayo ay yihiin kuwa lacagta dawladda iyo canshuurta lagu bixinayo waa qiimeynta ciidanka idinkana indhihiina fura u dagaalama xuquuqdiina النبضة دوري عندي النظامك دولة لماذا تعبالي يبديو بذهبا تنجرها أمي قلو دقنا أنت أقرب بالي أقرب بالي دقنا أنت أقرب بالي ciidanku waa gamaskii gaashaankeena ciidankeenu waa guusheena iyo geesinimadeena dalaan ciidan iyo xuduud awood badan lahayn cadowga waa u bayla waxaan leeyahay marka haddii aan rabno inaan ciidankaa wax ka qabanno waa inaan midnimo helnaa waa in intiina halkan joogtaa aada u midowdaan haddii midnimo la waayo markaa heybadii waa la waayey haddii dawlad la waayo sharciga kala dambeyn la waayo haddii wax soo saar la waayo ama ganacsade canshuur bixiya la waayana dawladnimo la waayo haddii ciidan tala tayo leh oo dhalinyaro ah la waayana difaac waa la waayey haddii difaac la waayana qarannimo waa la waayey haddii qarannimo la waayana qabweynidu way dhuntay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay mashruucan halkan la isugu keenay waa mid muhiim ah waxaan ku soo koobayaa isdhexgal baa kalsooni leh wadajir baa awood leh midnimo jacayl leh